Kenya faragelin bay nagu haysay dalkayagii bay faragelisay Jubbaland bay xoog ku haysataa ciidamo boolo u joogan shacabka caasimadda Puntland ee Garowe ayaa si buuxda u taageeray go'aankii dawladda Soomaaliya ay ka qaadatay dalka Kenya xalay xilli dambe kaas oo si buuxda xiriirka loogu jaray diblomaasiyiinta Kenyana loo qabtay inay 72 saacadood dalka kaga baxaan shacabku waxay isku raaceen in Kenya ay Soomaaliya ku xadgudubtay Kenya faragelin bay nagu haysay dalkayagii bay faragelisay Jubbaland bay xoog ku haysataa ciidamo boolo u joogan haddana Somaliland bay u yeeratay waxaan Kenya anigu aad uga hambalyeynaya in xiriirkeega la soo celin ciidamadeedana ay 24 saac wadanka uga baxaan Soomaaliyana ay u diyaar garoodo siday cadawga dalkeega uga xoreyn lahayd go'aanka Soomaaliya ay qaadatay maadaama Kenya ay Soomaali badan ku nooshahay saameynta leeg bugeysanaya baa isleedahay Kenya cadawgeena weeye wadankana ha iskaga baxdo dadka Soomaaliyeed oo Kenya joogana hadda cadow bay dugsanayeen ha iskaga soo tago dalkooga yimaadeen dalkooga nabada beerale wax walba leh Kenya waa inay ciidankeega wadanka la baxdaa iyaduna wadanka laga saaraa waligeed xiriirkeega la soo celin waayo qarannimadeena iyo madaxbannaanida ay ku xadgudubtay Agmadhiga Axmed Ciise xiriirka Kenya loo jaray oo xalay dhacay saqdi dhexe aad baan u soo dhaweynayaa sababtoo Kenya waxa weeye waxyeello badan bay ku haysay Soomaaliya waxyeello badan bay ku haysay waxa ka mid ah sida qaadko kale oo Soomaaliya dhibaato weyn ku ahaa ilaahayna aan uga mahadnaqayno maganaysaa joojinta la joojiyay badda dhulka oo ay haysato waxyaabo badan nidaam kale oo maarta qaab darro oo leeyahay Soomaaliya waa ku waday oo la sheegayo aad baan u soo dhaweeyay boqolkiiba baan soo dhaweynayaa Kenya waxaan u arkaa Soomaaliya inay qalad ku wadayn badan markii hore dawladda Soomaaliya dhacday inay ka faa'iidaystay dhaqaalaheedii iyo shacabkeedii aragti ahaantayda aniga oo ay nagu ladnaatay laakiin anaga waxba ku qabin marna ay noo soo daldalaysay daroogo shacabka iyagana lacag ka guraysay haday lacag wadana subaxda shacabka xiriirisay dollar bay dhalaan waxaan u arkaa inaysan wax daris wanaaga iyo wax wanaaga waligeed baan Kenya ay sameeyeen imikana ay sameeyeen doonin waxaan aad u taageersanahay go'aanka dawladda Soomaaliyeed boqolkiiba 90 waliba anigu waxaan ka jeclaan lahaa arinta gacan Kenya loola tago oo tilaabo degdeg laga qaado taasaan taageersanahay anigu diyaar baan ahay maanta hadii la dhaho Kenya weerar lagu qaado diyaar baan ahay macaaniya carruurtayda iyo aniga oo dama kulligeeyo waa galeynaa dhiigaygaan u horeynaa dhulkayga Kenya kama yeelayno waxa iyadu ay wado kama yeelayno marnaba kama yeelayno in macnaha dawladaha shisheeyo marka sabayna soo farageliyaan waxaas waanu ka baxnay dawlad baan noo dhisantay marka waanu ku dhimanaynaa ka ugu horeeya ku dhimanayaanay Kenya in badan bay ku haysay wadankeena faragelin dhibaato waxa weeye dad la laayaha ahaato mid diblomaasiyad ha ahaato mid waxa weeye siyaasad ha ahaato dhibaato badan bay Kenya ku haysay dalkeena marka dawladda Soomaaliya wax badan bay waxa weeye isdabcisay oo Kenya u turtay marka waxaan isleeyahay go'aankaasi waa go'aan sax ay xal ka qaadatay waxaan oran lahaa waxyaalaha kale oo ku jira sida ciidamada midowga Afrika kamid ah oo kale in laga saaro oo waxa weeye iyada laftigeedana go'aan laga qaato Kenya aad bayna wax gubtay maxaa yeelay wayna fargelin siyaasadeed iyo dhinac walba mid dhaqaale bay nagu wadaa kolley aniga fikir ahaanteeda waxaan qabaa Kenya inay wax gubtay waan ku taageersanaa dawladda Soomaaliya inay xiriirka u jirto maadaama waxa weeye qaranimada iyo calankeena iyo amnigeena wax dhibayay inuu waxa weeye qarannimadan dhibayay inaan ka soo horjeesanaay waa arrin sax ah Kenya ilaa iyo intii burburka ahayn ayay dib inagu waday dibka inagu waday waxa weeye dhinac walba ayuu naga saameeyay akhiiran waxa maraysaa in badeena inagu damacday waa meesha ugu xun waxa weeye la gaarsiyo fargelin siyaasadeed inagu waday gaarsiisay weeye waxa kamid ah caqabadaheeda in waxa weeye dhulkeena soo xadgudubtay sida waxa weeye Jubbaland oo kale fargelin siyaasadeed dhinac walba marka anigu fikir ahaan maadaama muwaadin Soomaaliyeed waxaan qabaa Kenya in xilka loo jaray mar hore habooneed maanta ma baahaynba in xilli hore habooneed course of maanta waxa maraysaa in dhulkeena damacdo biri wax ku xigtay dhahdo Kismaayo damcaya marka hawsha xal soo gordhay dawladda Soomaaliyeed ay qaaday waxaan soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol waayo dadkayada mas'uulka ah wixii wanaagsanna waa ku taageeranaa wixina kuma ogolin marka hadalka xaalid soo saartay ee hawsha Kenya waana soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol dawladda waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hayn barakeeyo duca iyo amaan bay shacabka Soomaaliyeed mudan yihiin
si toosa markan xiriirka Kenya lagu jiray maxaad is leedahay waa ka imaanaya in xiriirka loo jiray Kenya Soomaali badan baa dalka Kenya degan go'aanka Soomaaliya ay qaadatay maxaa ka imaanaya Soomaalida xagga degan saameynta ay leedahay muxuu keeni karaa isleedahay walaal doodda dalka iyo dadku kale waa kala miimsan yihiin dadku way soo guuri karaan macna ma leh laakiin dalka hadii la qaato macna ma sameeynayo marka waxayna noo muhiim dalka noo muhiim dadku Soomaaliyeed way tay karayaan dhulkeena weeye laakiin dhulkeena hadii la qaato aqli maaha dhulkeena noo muhiim hal taako oo Soomaali leedahay kiina ma qaadan karto marka dowladda Soomaaliyeed waan ku taageersanahay markood iyo marada ma saddexaad islaamka waxaanu xubinkanahay igaad annagoo inta xubinka waxaanu ka dacweynaynaa Kenya xitaa ciidamada ku hadhay inay nagala baxdo waana ku taageersanahay dawladayada xiriirka loo jaray Kenya qaar ka mid ah shacabku waxay aragtidooda ka dhiibteen in ay dawladda Soomaaliya arrintan campaign ka wado taasoo uu qabo muwaadinkan oo aragtidiisa cabiraya waxaan halkan ka cabirayaa aragtidayda ku aadan maxaan ku radaa khilaafka ka dhaxeeya dawladda Kenya iyo Soomaaliya dawladda Kenya waa dawlad aynu derisnahay oo intaas sano aynu derishayn deris wanaagsan in laga dhaxeeyay ganacsi iyo maxaan ku radaa bulsho wanaagsan oo isku dhex jirta baynu hayn marka sanadahan dambe khilaafyadan soo abuurmay soo dhaxgalay ka maxaan ku radaa dhinaca ganacsiga u badan waxa weeyaan dawladda Kenya dawladda derisnahay Ethiopia deris baynu nahay ninka Ethiopiana aan saddex qarni Ethiopian isleenaynay oo in suucino dadkeen iyo dalkeenniba baabaha ka siisay hoosta ku wata Kenya ayna wali waxba siyeelna 150 kilomitir badan isku haynana cayrinaya iyo ummadii maxaan ku radaa waxa cayrinaya waxa la tawa aragti qaldan war dadka ama dawladaha deriska ama hal wada nooc laga wada saar dalka ama iska daayo ka jeclaysiga saddex qarni dadkii aan noolka hayn baa leeyahay hadii oo walaalay oo la doonayo taariikhdii qaldalayd ee Ethiopia soo dhaxmartay in la bedelo yaado taariikh wanaagsan bay naga dhaxaysay waa walaalaheen oo deris wanaag banahay labadooda waxaan deris wanaagahay Kenya hadii qaadka ay sheekadu tahay oo la doonayo qaadka in la xidhan waa la xiri karaa laakiin barnaamijyada kale ee hadeer campaign-ka lagu diyaarsanayo campaign baa la diyaarsanayaa barnaamijkan campaign kaani ma fahmayo dalka iyo dadka yaan la wareerin aragtiyaan waxaan baahamsanahay dalka maanta badbaado inuu u baahan yahay dalka iyo dadka badbaado inuu u baahan yahay oo uu uga baahan yahay dadkan inagu xukunka u dirsanay in laga badbaadiyo dalka xukunka u dirsanay aan ugu aaminsanayba saameyn intee leeg ba ka dhalan ka dhabaas leedahay go'aanka Kenya ee Soomaaliya ku cayrisay diblomaasiinteeda saameyn badan baa ka dhalan karta saameyn badan oo dhinaca ganacsiga loo dhinaca siyaasadda loo hadeerba waa kan siyaafaradii la soo kala rartay iyo maxaan ku radaa wakiiladii marka saameyn fara badan baa ka dhalan karta dhinaca dadkii way isku dhex jiraan oo Soomaali baa halka degan dad Soomaaliyeed ka maarmaynin dadkan Soomaaliyeed walaaladooda aan ka maarmayn baa degan xaggan Soomaaliduna dadkan ka maarmayn anigu haddaan matalan example waxaan ku dhashay Kenya ku dhashay halkana waan joogaa haddaan waddankayga tago saameyntu way saameynaysaa isla waddankaaga ku noqo kuwa halka joogna waa sidoo kale marka ayaan la isu cileeda galin dadkan wax cudur iyo wax cilada isu qabaan ma jirto waa siyaasad baa ka dhaxaysa siyaasadii hadii la isku diido shacabka ay saameyn siyaasaddu waxa farmaajo isku diidayeen Uhuru Kenyatta anaga waxba naga ma quseeyo hadaanu shacabkiina waxba naga ma quseeyo in qarnimada Soomaaliya lagu soo xadgudbisay dawladdu sheegtay adigu taa kuma muuqato qarannimada Soomaaliya cid ku xadgudbi kartaa ma jirto cid ku xadgudbay hore loogu xadgudbay hadii qarannimada Soomaaliya xadgudubkeeda laga dirirayo hore kun jeer lagu xadgudbay ciidanka maxaan ku radaa Ethiopia-ka halkan 2007 iyo 6 soo galay dadkii Soomaaliya soo xadgudub ma ahayn maxaa loo arki lahaayay 25 milyan oo kun baa ku dhimatay maxaan ku radaa Kenya waxaan la Ethiopia ku dhimatay oo lagu laayay kuwiina laayay baa hadda laga dhisay taalooyin looga dhisay Hargeysa maxaan ku radaa jigjiga iyo goday looga dhisay taalooyin marka maxaa loo arki lahaayay aragtida qaldan maxaa loo arki war mugdi baynu hadeer galay waligeena aanan galwaligen soo jooga madaxweyne farmaajo la soo saaray qararadii Soomaaliya la baabiyo lagu qoray Ethiopia oo uu ku qoray wasiirka gaashaandhiga xataa ma aha qof maxaan ku radaa si fudud wuxuu yiri wasiirka gaashaandhiga Ethiopia soo dhigay iyadoo Ethiopia ku qoray maxaa loo arki lahaayay xumaanta ilaa fargelinta diyaaradii Kenya hawada marayay baa Ethiopia gantaal ku dhufatay si ay isugu dhufato maxaan ku radaa labada dawladood waa xumaan la soo maleegay laga soo maleegay sabab haddii xumaanta Kenya iyo ka dhaxaysa Soomaaliya ma aha xumaan shakhsiyan oo inaga dhaxmartay naga dhalatay Cabdixakiin Xuseen Xasan Radio Daljir Garowe Salaam Bank wuxuu kuu fududeynayaa adeegsiga kaaftoon adigoo si fudud u dhigan kara ugalana bixi kara lacagta akoonkaaga haddaba macmiil
si aad si fudud ugu isticmaasho adeegan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga salaam bank xidig lacagta aad dhiganayso 4 gees geli macluumaad sida magac ama faahfaahin ugu dambayn geli lambar sireedka sahalkaaga sidoo kale macmiil si aad akoonkaaga salaam bank lacag ugula baxdo garaac xidig 887 xidig akoonkaaga salaam bank xidig lacagta aad la baxayso xidig lambar sireedka bangigaaga 4 gees geli macluumaad sida magac ama faahfaahin ugu dambayn geli lambar sireedka sahalkaaga akoonkaaga salaam bank ku maamulo si dhib yar salaam bank